sharmaake iyo milyuun ma kala tageen. horta aniga milyuun si sharaf leh aan isu guursanay, maantana si sharaf leh ku kala tagnay. waliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas aysan soo bixin ka hor aan ayada kala dhamaanay, laakiin arrinkeena social media ma keenin. haddana daruuri way ila noqotay inaan hadeertaan dadka u sheegaa. markii qof aadan ka filanaynin ama saaxiibkaaga ah, waliba saaxiib aan ka hadlayaa, markuu ku khiyaano kuu sameeyo, waliba saaxiib isla soo ceeshteen, waa ballan iyo axdi baan ku iri runtana way soo baxay abti macaan. ku raaxayso qofka live-kiiga ku jira daawanayo kaleeyahay waa aaminsanahay just now inuu daawanayo, laakiin runta way soo baxay, waana la ogaanaa, dadka dhanna way ogaanayaan runta abti macaan. insha Allah hadduu alla idmo. waa intaan Jabuuti ka imaanayo oo kaliya inta runta laga ogaanayo. Jabuuti inta aan ka imaanayo waa runta inta laga ogaanayo xaqiiqada, wax aan qarinayo mala baaba. samayn karo mataqaanaa horta hadda inaan arrimaha familkayga iyo noloshayda iyo inagala hadlo uma soo galin, mana ka hadlay. hadda taas iga sugaysiin waa goonidiina, waa sugi kartiin. dadkii taas sugayana waxaa idin dhihi lahaa hadda isaga baxa, waxaas kama hadli rabo, ma fahanteen. laakiin waxaa xanuun igu hayso oo aan u qaadan waayey oo la yaab igu noqotay, waliba dee xanuun aad bay ii xanuujinaysaa, aad bay ii xanuujinaysaa, ma fahanteen. qof hadduu ku xumeeyo aad ka tegi kartidaa jiro, qof hadduu ku xumeeyo mataqaanaa, qof hadduu ku xumeeyo aad ka sabri kartidaa jiro, waxba xanuun aan kugu reebeynin, laakiin aan ka tashanayso. laakiin markii qof aadan ka filanaynin ama saaxiibkaaga ah, waliba saaxiib aan ka hadlayaa, markuu ku khiyaano kuu sameeyo, waliba saaxiib isla soo ceeshteen, oo ceesh idinka dhexeeyay, saaxiibtinimo idinka dhexeysay, weliga aad ku xadgudbin, wanaagiisa inaad raadiso maahane. waxaan idiin sheegayaa aniga saaxiibkii iigu dhawaa inuu i khiyaanay, waliba si xun oo i khiyaanay. qofaa deeq darajo soo qoray, deeq darajo maahan, deeq darajo waa saaxiibkayga, weligiis xumaan iyo ma geysanin, wax dhiba ah kama tabanayo. laakiin nin shaqo eena wada dhexmartay, saaxiibtinimo eena dhexmartay, wanaag iyo walaalnimo uu naga dhexeeyey, baa si xun ii gale, si xun oo nin rag aan laga filanaynaba ii gale. saaxiibtan keligayga markaa fikire, haddana waxa ii soo baxday asxaabteyda iyo faniskayga inaan waqti la qaato oo aana u sheego mataqaanaa inuu jirka ii gubanayo, oo zaaid weliba uu ii gubanayo, ma fahanteen. midaada kale, haddii aad u malaysaan dadka social media ku jiro asxaabta oo barnaamijyada waxaas isla dhigo oo mataqaanaa isla soo heesa, hadday rabaan barnaamijyada isla soo dhigo YouTube mataqaanaa kasoo wada shaqeeyo, qaarkood YouTuberaha hadday yihiin xataa qasab maaha in mataqaanaa dadka hortooda saaxiib waa lagu yahay,
dadka hortooda wanaag uu ka dhexe mataqaana dadka uu ka dhexeyn karaa laakiin aniga ka shakhsi ahaan weligii qof saaxiib aan ka dhigtay inaa xumeeyo iskuma dayin mana xumeynin haddii aan ka dareemo inuu qofkaas xumeeyana dee waa ka tashan jiray maanta nin isku filana ahay mataqaana dhin maanta fanis u baahan ma ihi oo mataqaana oo caanimo raadinayo oo dee nin mataqaana fanis ay ku xiran yihiin baan ahay taageero ijecel baan haystaa dad ijecel baan haystaa tee nin views u baahanna maanta ma ihi views inuu raadiyo oo heesayga 10 milyan iyo 11 milyan iyo 9 milyan iyo fanaaniinta Soomaaliya ugu viewska badan baan ka mid ahay oo maanta views uma baahna qofna views kuma raadinayo laakiin